hanjabaad hor leh oo u muuqata in si toos ah ay u gelayaan baydhabo ayaa mar kale ka soo yeertay afhayeenkii koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen abaabulka socda falkii shalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo wararkii ugu dambeeyey askar la sheegay in xabsiga loo dhigay dhacdo ka dhacday isla gudaha magaalada baydhabo oo qaad looga dhacay xaasas qaadley ah ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal ee soo dhawaada haddii ay tahay markaa kugu horreysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe dhahato qaybteennan hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan sidoo kale saaxiibadiina lasii wadaagtaan muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro una helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale mar kale soo dhawaada saaxiibayaal afhayeenka koonfur galbeed ee madaxweynihii awoodda looga saaray baydhabo ee cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu maanta fashiliyey sir badan oo ku hoos dugneyd dhacdadii shalay ka dhacday gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya dhacdadaas oo ahayd ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo ka soo baxay xirooyinkooda in ay si toos ah rasaas ula beegsadeen xaasas amaba habeen qaadley ah oo ku sugnaa bartamaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya taasi waxa ay keentay in habeenku ay ka cararaan miisaskoodii sidoo kalena guryaha ka agdhowaa halka ay kabarada u yaaleen ay galaan markii ay arrintaasi dhacday kadibna ciidankii rasaasta riday inta ay ku soo xoomeen goobtu guud ahaanba ay qaateen wixii qaad ahaa ee halkaasi yiilay waxaa dhacday in warbaahinta koonfur galbeed qayb ka mid ah ay gaarto goobta iyada oo weliba si toos ah usoo bandhigtay rag amaba habeen cabasho ahaa oo sheegay in dhac toos ah loo geystay sidoo kale waxaa barbar socday isla habeen kale oo iyagana kufsi iyo dhac laysugu daray amaba sheegay in laysugu daray oo gudaha magaalada baydhabo ku sugnaa muuqaalada halkaasi ka imaanayay saacadihii lasoo dhaafayna waxay ahaayeen kuwa murugo iyo caloolxumo ku reebay dadka deegaanka si gaar ahna dib u xusuusisay wixii madaxweyne laftagareen 2 bilood ka hor uu kala hadlayay shacabka koonfur galbeed si gaar ah kuwa ku sugan gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose hadda waxay u muuqataa xaaladdu inay isgadisay afhayeenkii madaxtooyada koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ugaas xasan ayaa si toos ah shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in saacadaha soo aadan laga xoreyn doono magaalada baydhabo guud ahaan ciidamada dawladdu ee halkaasi la geeyey ee magacyo kala duwan ay ugu yeeraan xilligan waxaa sidoo kale socda abaabullo iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed ee duleedka magaalada baydhabo ku sugan si gaar ahna u taabacsan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen haddaba nuqul ka mid ah hadalkii uu jeediyey afhayeenku waxa uu u dhignaa sida tan u hiiliya ciidamadiina koonfur galbeed ee daraawiishta koonfur galbeed oo raba inay idin xureeyaan inay idinka dulqaadaan dulliga maanta la idinku haysto bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu arooriyo suuban subax wanaagsan dadka reer koonfur galbeed meel kastoo dunida kaga nooshihiin waa idin salaamaynaa waxaan rabnaa inaan qodobo kooban oo aan isleenahay waa waqtigii loo baahnaa inaan halkan ka niraano marka ugu horreysa waxaan ka tacsiyeynaynaa guud ahaan dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday maalintii shalay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan aad ola damqanaynaa kana xanuunsanaynaa hablaheennii sharafta badnaa ee reer koonfur galbeed gaar ahaanna reer baydhabo sidaan horeba u sheegno dhowr jeerna ku celcelinnay in sharafkooda iyo cirdigooda iyo hantidooda maalin cad ay weeraraan ciidamadii duulaanka ku soo qaaday magaalada baydhabo aad iyo aad baan uga xunnahay hablaheenna sharafta leh waxaan leenahay ma mudnayn wixii idinku dhacay ha yeeshee waa laga xisaabtami doonaa maalin uun maalmaha ka mid ah sidoo kale shacbiga reer koonfur galbeed soomaaliya dhowr jeer baan baaqu diray oo niri waxa loo socdaa ma ahayn in madaxweyne cabdicasiis lala dagaalama waxay ahayd burburinta dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya maantana waa ku celinaynaa waxa loo socday oo la rabay in la baabi'iyo dadkiinay ahaayeen hantidiinna in la dhaco guryihiinna in la baarto hubkiinna in la qaato dhallinyaradiinna in la qaxiyo mas-uuliyiintiinna qaar ka mid ahna baydhaboon xabsiya laga weynin in xamar inta la geeyaa godka jilacow la geeyaa dhibaato weyn oo soo kororta weeye shacbiga reer koonfur galbeed oo meel walbood joogtaan ujeeddada aan duurka ugu jiraa ma aha inaan shakhsi la dagaalamayno dowladnimadeedii 2 bilood ee lasoo dhaafay lagu soo duulay
la burburiyey ayaan rabnaa inaan dib u soo celinno shacabkeenna waxaan ka rabnaa dowladnimadii jirtay waa tan amnigiinna ilaalinaysay horumarkiinna ka shaqaynaysay fagaaraha ummadda soomaaliyeed ay isugu imaanayaan danaha guud ee dalka looga hadlaayana idinku matali jirtay waxa la burburiyey guud ahaanba hay-adihii dowladda waxa lagu sameeyey koonfur galbeed waxaana dadka soomaaliyeed oo kale aysan qabin waxa baydhabo ka socdaa galmudug kama socdaan waxa baydhabo ka socdaa hirshabeelle kama socdaan puntland iyo jubbalandna kama socdaan walaalayaal waa laga yaabaa dadka qaarkood inay nala yaaban yihiin ugaaska iyo dowladdiisu maxay hawdka u galeen ha yeeshee taariikhdu waa isqori doontaa waxaad ogaan doontaa maalmaha soo socda wixii aan idinkala hadlaynay dhibaatooyinka noocyada kala duwan oo innaga inoo muuqda idinka idiin muuqanin sideedaba ummadda markay xaaladdu jaq tiraado waxaa hoggaanka iyo hagidda u haya waxgaradka iyo mas-uuliyiintii loo egmaday xilhaynta annagaa og masaalixdiina guud iyo tangaarba annagaa duurka idinkugu jirro waana idin xuraynaynaa ilaahay idinkii waana ka saari doonnaa kuwii dalkeenna ku soo duulay siyaasiyiinta reer koonfur galbeed odayaasha iyo dhallinyarada kuwa aaminsan maanta aamusnaantiinna waad ku meel maraysaan waxaad sugtaanba waa wixii shalay hablaheennii ku dhacay waxaad sugtaanba waa inay dhibaato kale idin soo gaadhaa ama aamusnaada ama hadla taariikhdu waa idin qori doontaa siyaasiyiinta reer koonfur galbeed ee madaxa dhulka ku hayow haddaad aamustidna lagu dayn maayo haddaad hadashiday sharafii kuugu jirtaa ee hadal ka dhiidhi wixii shalay ka dhacay baydhabo hablaheennala loo geystay waxaan rabaa inaan baaqu diro ciidamada kala duwan ee baydhabo lagu soo daabulay ciidamada qaranka soomaaliyeed walaalaha iyo kuwa la soo khalday ee la yidhi baydhabaa dagaal ka jira ee kaalaya shacbiga soomaaliyeed la dagaalama warhoy waa laydin soo khalday inaad baydhabo ku dhimataan waxaad u dhimanaysaanna aadan ogayn idinkay sharaf xumi idinku tahay hooyooyinkiinnaad gablan ka tihiin naagihiinna iyo reerihiinnaad asay u saaraysaan ogaada waxaad u soo duushooneed baydhabo u imaadeen ilaa hadda idinkuna garan maysaane waxaan leenahay walaalayaal waan idin jecel lahay ciidamadayadii baad tihiin kuwii aan shalay cadowga isla difaacaynaad tihiin baydhaba isaga laabta dadkeedu waa ku filan yihiin dowladdeedu waa dhisan tahay hay-adaheedu amnigu waa joogaan intii dowladnimada ay shaqaynaysay idinku maadan nala joogin reer baydhabo iyagaa ismaamulayey iyagaa isxukumayey iyagaa amnigooda ilaashanayay way isku filan yihiin waxaan leenahay walaalayaal yaan la idin khaldin ujeeddo guracan yaan la idin isticmaaline ku laabta halkii aad ka timaadeen ciidamada kale oo walaalaha iyagaa reer koonfur galbeed gaar ahaanna ciidanka laga keenay waajid iyo xudur walaalayaal dalkanaynu wada leenahay sabab baydhabo maanta ciidan loogu soo daabulaa ma jirto baydhabo dhowr iyo 10 sanay dowladay ka jirtay ciidan kooban oo qaybta lixdanaad la yiraahdo guutada 8aad ayaa amniga kala shaqaynayay ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya oo ay isgarabsanayeen in maanta guutadii 8aad ee tirada yareedna la baabi'iyo ciidankii dhowr iyo 10 sano kala shaqaynaya amniga ciidamada koonfur galbeedna wax qoryaha laga qaato wax la eriyo wax mishaarka laga jarto iyo wax laga qaado baydhabo oo la geeyo meelo kale deegaan ahaan aysan aqooninna waxay tilmaamaysaa waxa loo socdaa waxay tahay sideedaba in ciidan koonfur galbeedna way isku dayeen inay baabi'iyaan kuwa qaybta lixdanaad oo hore u jooga deegaankaas u dhashana in la baabi'iyo dabadeetana la keeno kuwa aadan dhaqankiina aqoonin deegaankiina aqoonin qaab dhaqankiina aan aqoonin la idinkuna dulaysta sidii shalay ta dhacday walaalahay xudur iyo waajid laga keenayo dalkan idinkaana la leh soo dhawaada dalkiina ku soo dhawaada ha yeeshee qoryaha iyagu iyo qoryihiinnu isma qabtaane magaalada baydhabo meel ka baxsan ha soo aadina laakiin cidda aad qoryaha u soo qaadateen hadday tahay dadkiinna way idinka khaldan yahay idinkana qoryihiinna ammaankooda xira meesha la idin keeno baydhabo ahayd magaaladiina ku sugnaada duurkan ha soo aadina khasaaro badan baa yaallo shacbiga reer koonfur galbeed oo meel walba dunida ka joogtaan u hiiliya dowladdiinna koonfur galbeed u hiiliya ciidamadiinna koonfur galbeed ee daraawiishta koonfur galbeed oo raba inay idin xureeyaan inay idinka dulqaadaan dulliga maanta la idinku haysto ilaahay idinkii maalin dhow waqti dhow oo aan sidaas u fogeenna waxaan rajaynaynaa inaan idinka dulqaadayno
garab istaaga ciidankiina soona dhoweeya mar kalan ku celinayna shacbiga reer baydhabo sacbatunka waad ku fiican tihiin mararka qaarkood dantiina ma taqaanaan ciidamadiina soo dhoweeya ciidanka koonfur galbeed oo aan ognahay in magaalada baydhabo ay ku hareeraysan yihiinna waxaan leenahay walaalayaal u tura shacabkiina yaan dhibaato la gaarsiinin cidaan xabad idinku soo ridin xabad yaan lagu ridin cidaan dhibaato idin gaarsiinin yaan la gaarsiinin shacabkiina ha loo turan leenahay ilaahay idinkii koonfur galbeed reer koonfur galbeed baa iska leh dalkanaynu leenahay miyi iyo magaalaba meel kale uma soconno waa halkaan awoowadeennii ka soo gaarray aabbayaasheennii ka soo gaarray tanaynu leenahay ilaa maalinta qiyaamaha tanaynu ku noolaan doonnaa qaar baa waxay leeyihiin maxaad duurka ugu jirtaan duurka waa kii aabbahay ku dhashay hooyaday ku dhalatay awowgey ku dhashay miyi iyo magaalaba reer koonfur galbeed baa iska leh halkaanaanu ku sugnaan doonnaa duulaan kuma nihin cid kale dalqabsi kale uma soconno ha yeeshee cid walboo weerar ku ah jiritaankeenna ummadeed dowladnimadeenna inaan annagu ismaamullo duulaan ku soo qaadaa gacan biraynu isaga qabanaynaa wakhtigu ha dheeraado ama ha gaabnaado waa xuraynaynaa koonfur galbeed waana xuraynaynaa magaalada baydhabo haddii ilaahay idmo haddii aad ila dhamaadkana la soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto saaxiibadaana la sii wadaagto muuqaalkan janalkeenna subscribe dhahato qaybta hoose ee faaladan aragtida noogula wadaagtaan